dhaqankaagana weligaaga ha ka leexan u hagaaji kana yeel mid tun habaysan. Waxaan idinka codsanayaa inaad videogan aad gaarsiisaan like badan iyo share inta badan. Waxaan rabaa inay gaaraan gabdho badan. Waxa laga yaabaa in baydhawo janaay lagu yaqaano dadkaasna waxaan leeyahay Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibada meel kasta adduunka ka joogtay waxaan daawanaysan waa T.B.B boys ku soo dhow muuqaal cusub. Fadlan muuqaalkan haddii aad ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad like iyo share saaxiib badan ugu gaaro. aad u mahadsan tahay. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay barnaamijkii aan soo bandhigay barnaamijka codkaaga Tijaabi waxaana ila joogto Walaashe Nasteexa. Marka soo dhawaada in leeyahay YouTube-ka hadda markii kugu horeysay ay tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe asaadid si muuqaal walba oo anaga aan u soo sameeyno oo kugu soo dhacona gambeel ku furo. aad u mahadsan tahay. soo dhawow aan ku leeyahay. marka barnaamijka codkaaga Tijaabi maanta waxaa marti waa Walaashe Nasteexa iyada ku soo dhaweyn rabaa barnaamijka. waxaa rabtid hees wax walba waa ku tijaabin kartaa barnaamijka uu ku furan yahay. marka iyada ku soo dhaweyn rabaa insha Allah markii ugu horeysay YouTube channel-ka ku soo muuqanayso waay. marka idinkan aad u mahadsantiin. soo dhawaada in leeyahay. Masha Allah wa salaam warahmatullaahi wabarakaatuh. waa walaalkeena WLLCADKEY aad u mahadsan tahay maadaama aad igu soo dhaweysay channel-kaaga. waa markii ugu horeysay aan ka soo muuqdo social media gaar ahaan YouTube-ka. marka waan dhowahay adna soo dhawow. waxaan diyaar u ahay inaad su'aashaas weydiiso aan ka soo jawaabo insha Allah. codkaaga Tijaabi barnaamijkaas wuu soo socday in badan. maanta aniga ka soo qayb galay. maanta ana lagu soo qabtay. waxaan rajaynayaa inaan si fiican ugu gudbo insha Allah. Nasteexa saa ula socotid barnaamijka waxaa ku tijaabin kartaa hees waxa walba nashiido iyo waxaad adi awoodo aad ku tijaabin kartaa. marka adna soo dhawow aan ku leeyahay barnaamijka. hadda waxaynu tijaabin kartaa hees nashiido maxaa dalban lahayd inaan ugu tijaabiyo. horta heesta uma badni heesna ma aqaani. waxaan idinku soo tijaabinayaa nashiido oo loogu talagalay gabdhaha. in badan waa maqsheen saan u filaayo. marka natiijadaas aan idin soo gudbo insha Allah. noo bilaabaa ku dhageysanayna. okay codkaaga uu kula fiican yahay adi. codkayga inuu fiican yahay waan aaminsanahay intaas. okay xifdi quraanka walaashayda hagaagsan si aad horumarka u gaarto qab hagaagsan. taqwaduna ha ahaato la jirkaaga hamigaaguna ha sareeyo qaba hawsan. astur jirkaaga ha noqon mid halaysan horumarkaana umalaysay jila hoolay. rabbi markuu ku qalqaalay run ahaantii suuradaadii buu ka yeelay mid hagaagsan. hadalkayga shaydan harumaysan si usan hoogiyo backuunu hogaamin. dhaqankaagana weligaaga ha ka leexan u hagaaji kana yeel mid tun habaysan. midaasaan kasoo koobi karaa. nashiido labaad iyo codkaaga wallaahi anaa bii cajib gelin fahad. marka nashiido labaad noogu dhufatid iyo haddaas inta ku reebanaysid adile waaye wuu kuu furan yahay barnaamijka maanta. okay nashiidaas labaad waxay tahay ta'ammaltu waddunyaa bihal cujbu walcajab taruuxu bilaa cudurin وتأتي بلا سبب فلا ظل هذان ولو ضل عمنها. وسلع الهواها كل من وتها خضب ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل إلى الذهب. ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل إلى الذهب. midaas meeshaasaan kasoo koobi karaa insha Allah. barnaamijka anoo ka faa'iideysanayo maanta gabdhaha Soomaaliyeed maxaa kula dardaarmaysaa adoo jaanis u haysto. horta maanta jaanis badan waan soo raadiyay. maantana jaanis aan u helay inaan social media aan ka soo muuqdo gaar ahaan YouTube channel-ka T.B.B boys oo ah dadkii u fiicnay aan isfahanay inta social media isticmaasha. marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhaqankan hadda lagu jiro waa dhaqan xun. gabdhihiina waxay u bateen hees iyo wax malaawacil ah
waxay ka tageen diinteena nashiidadii aan horay qaadayay midii oo xifdi quraanka ahayd taas waxaan u soo qaaday waxay ahayd waa fahmi kartaa gabdhaheena ayaan u soo qaaday waayo gabdhaheena maanta waxay joogaan xeer ay soo bandhigaan iyagoo qaawan iyo mar walbana uu arka wiil oo ajnabi ah saasaan marka gabdhaheena waxaan ku gubaabinayaa inay alle ka cabsadaan waayo ilaahay waa uu soo abuuray haddana waxay u socdaan alle agtiisa marka idinkama badbaadin doono applicationkan TikTok idinkama badbaadinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin waxaa la istaagi doonaa siraadul mustaqiimka markaasna kuma badbaadin doono wiil aad isu soo qaabisay kaasna inuu ku badbaadiyo lagama yaabo marka naftaada qofma laftiisa ayuu isbadbaadin karaa marka gabdhaheena Soomaaliyeed waxaan leeyahay gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaan idinka codsanayaa inaad videogan aad gaadkiisaan like badan iyo share inta badan waxaan rabaa inay gaadhaan gabdho badan waxa laga yaabaa in baydhawo janaay lagu yaqaano dadkaasna waxaan leeyahay alle ka cabsada insha Allah alle ka cabsintu waa wanaagsan tahay qalbigiina khayr u sheega insha Allah meeshaasaan ka soo koobi karaa aada u mahadsan tahay walaashe Nasteexa aadan kaaga mahadcelinaa si fiican ay la qayb qaadatay barnaamijka codkaaga Tijaabi isna hadana ay ka faa'iideysatay in gabdhaha wax u sheegtid oo wax walba ka dhaantid maanta la dhihi karo social media dadka ku dhex jira waxay u badihiin dad isku soo duuba iyagoo qaaban dad isku soo duuba iyagoo wax xun soo bandhigaya iyagoo ku raadinaya like badan iyo inay share badan ay helaan maanta haddii wanaaga faafisid wax walba ku gaari kartaa wax walba macna isleeyahay wax walba ku hagaagayaan wanaaga marka dadka ha u bataan dadka wanaaga isticmaala Nasteexana waxay ka mid tahay dadka wanaaga aadka nool jecel inaan soo gudbino idana hadda T.B.B boys ayay qayb ka tahay idana aad ugu macdelinaya barnaamijyo badan ayaa in soo wadnaa idinkana aad u mahadsantihiin muuqaalkan hadduu ku soo gaaray waxaan ka codsanayaa inaad like saarto si share gareeto si asxaab badan u gaaro inkastoo ay ka soo muuqatay gabar aad u mahadsantiin waxaan idinka tegaynaa salaanta assalaamu calaykum hadal ma jiro may okay aad u mahadsantiin saasi nabadgelyo